عيل الدنيا له هذا ما أنت ويل هتو إلى دلنا أدير كواد لبعض ستحد أفراد أنا ما قوى waxaan leeyahay haweenkeena quruxda leh cidii qori ku taagtaa oo qiimahood garan wala qaayama laha أبهن ويل إيه ما دلين أفرفع مذيك يا إساس درتي هذا ويقول دكتي ما أنت markii aan arkay muuqaalkaasi waxaan dhigay bartayda bulshada si aan u helo gabadhaasi iyo cidda lagala xiriiro mid ka mid ah saaxiibada Facebook-ayga ayaan ii soo diray nambarkeeda waxaana iigu sheegay Farxiyo Cabdi Muudey waan wici doonaa waxaana ka codsan doonaa inaan ka diyaariyo sheeko la xiriirta dhibaatada iyada ku dhacday السلام عليكم. عليكم السلام. ولا شيء يورن. الحمد لله والله. الحمد لله قفتي لا ليس فرحية عبد المديم يا. والله يا واحد. أباي ونيشا شالي هذا ورياه. أباي مقال كان أركي فيسبوك وريجا أنا اللي سمع. أنا أتكلم. مركز دبعتك وقول عادي واي. waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago si wax looga qabto miyo ogolaan kartaa inaan ku imaado oo sheekadaas ka diyaariyo insha Allah waa ku imaanaya hadii ay baryaraan hay بس أنا كوكار قامة وإذا ليك عليه حتى ونفتي هذا الاستهكاس إدافين بعد حرشكي وياه ma garan karo sabab aan u sii fadhiyo iyadoo aan arkayo ilmada hooyo Soomaaliyeed oo qubanaysa waxaan ku wajahanahay guri si dhuumashaha ay ku joogto Farxiyo Cabdi Muudey oo ku yaala Muqdisho waxaana idiin soo gudbin doonaa hadii uu saamaxaha iska leh awoodda saamaxaada dhibaatada ammaan ee ku geedaaman Farxiyo alxamdulillah adliido waxaan soo gaaray hoygii ay Farxiyo Cabdi Muudey uga sugnayd Muqdisho si aad u ogaataan waxa ay tabanaysa Farxiyo Farxiyo maanta waa dhibane mas'uuliyiin kala duwan ka tirsanaysa dhibaatooyin la xiriira nafteeda waxaana dhacdadii ugu dambeysay ee kala kulantay guriga xildhibaanad Naciime Ibraahim oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ka gadaal markii mid ka mid ah ilaaladeeda qaaska ah uu qori amaankiisa furan yahay ku qabtay Farxiyo uguna hanjabay dil sida ay inoo sharaxayso dib intuu iga dagoon amaanka furto uu yiri 3 xabaa kugu dhufanaa eeyay marka isla markii waa buuq meesha ku batay xilwaanadan way soo baxday haday soo baxday micnaheedu warkii wax oo adiga kama soo qaadin oo aan weyn kama soo qaadin ana laakiin waa ka xumaaday oo calal xum badan iga qabatay maadaama aanigana maxay ahayd aan wiil aabay wiil ii dhalin oo maxay ahayd aniga dibkeyga xanuunkeyga ka hadlay adeer koowaad labaad saddexaad aan qabin waana sax waana wax jiro wuxuu ilaahayna ii qori waaye intaas isku calul xumay sidaas anigana aan baraha bulshada u wadaagay yay tahay xilbaanada aad sheegayso xilbaanada aniga beesheedii xildhibaan u tahay magaceed Naciime Ibraahim Yuusuf Allah baarlamaanka aqalka sare ka tirsan ha way ninkan staafka wuxuu ka shaqeeyaa guriga xildhibaanada guriga ka shaqeeyaa marka hadda koor maxaa soo qabateen hadda koorna sidaas albaabka isku dagaalnay maxaa lahaa hadda koorna albaabka isku dagaalnay wiilal kale oo iidan staafkeeda joogo wiilashaas aan iga celiyeen way qoriga markuu kugu soo taagay maxaa dareentay waxaan dareemay wadnaha afkii soo galay lagu yahay jiray waan naxay shalo dhan interest waxa madaxa dhan saayid yahay ilaa xaliman hurdin xalo dhan korkeyga jireynay marka aan hadlayo on live ka soo galay xataa ma aqaan waxaan sheegay ilaa hadda xataa mana sii dhageysanin marka dad kale soo wacay oo igu soo waashto shalay ilaa xaliqadkayga iyo telefoonka inta iska damiyo haddaan damiyo xataa telefoonka xal dhan waa jiifan waayay cabsi darteeda amaankoona ii jirtay ilaa haddana aan cabsiyaan dareemayo wadnaha i xanuunaay qof oo amaanka loo jirto 3 xabba kugu dhufan hal dhahay lagu aadiyahay dhibaatadaasna dhowr mar igu gaa laakiin aniga hadda tan shalay ka xanuunsaday oo mar kasta igu soo noqotay xildhibaanada markii ay soo baxday maxay ku tiri askariga waxay ku dhahday wariyaa maxaa saas u sameysay xaq uma lihid ina qori ku qabatid xaq uma lihid ina aflagaaday sidee dhahday bas aniga waxay dhahday gaariga soo raac kadibna waxay dhahday raali noqo iska dhaaf aniga waa ooynay markaas ha ooynin waxay dhahday
aniga saas dhahay dadka iga celi anaa dhahay amar la-aanteeda qof ma soo deyn karta anaa dhahay marka aniga waxaan dhahay waxaa qalad in leecaayaan dhahay oo qoriga oo ammaanka ii furto oo sidaas igu dhahaa haddana dhib ma lahaan dhahay waa iska soo degtay gaariga aniga xaafadeeda iisoo dhaweysa waxaan dhahay waa degana inta aan ku ekaay waa ka soo degtay kadib ani talaabada igu horeysa aan qaaday waxay ahayd maxaa lahaa qofka ayada waxaan dareemay ani iida inay ka dambeyso tiri iga celi maadaama iga celi ay dhahdana raalli ma ka ahayn in la aflagaadiyo qori lagu qabto laakiin celiska yani ayada amartay hadday amartay sidaasay arrinta ku dhacday anigana waan wax aan ka xumaaday ilaa haddana ana caloosheedii iyo qalbigeyga iyo meel kasta maskaxdeedii xanuunayso waaye aan xanuun badan igu reebto waaye marka laga soo tago inuu qoriga kugu taagay ammaanka kuu furtay ma jirtaa gacanka hadal iyo dhibaato kale kuu geystay gacanka hadal may aflagaadadaas inuu aflagaadee oo qorigana afka waxaga ii saaray ee niman iga qabteen asagoo ugu dhufaraba 30 xabban kugu tirnaa dhaay wiilal iga qabteen qoriga koraa looga qabtay mise koraa looga qabtay haa maxaad dareensanay haday nimankaas meesha joogi lahayn ani inuu idil lahay adiga maxaad jeclaan lahayd in isaga lagu sameeyo أنا waxaan jeclaan lahay sidoo ii cabsi galiyay ina maxay ahayd hadhow tibirka maalin oo nolosheedana halis oo ku galin ninkaas aan xaqiisa waa ka dilanahay nin saddex xabba kugu dhufan ay qori ugu qabtay oo ii aflagaadeey inuu sharciga maxay ahayd wax iiga qabtaa rabaane mana la wadaagi kartaa magaciisa ha maxaa leeyahay buula oo aqaanani wax loogu darmo ka saay laakiin farxiya waxay nolosheeda kala soo qarartay Jowhar oo ahayd magaalo in badan oo nolosheeda kamid ah ay ku qaadatay ku dhalatay ku soo barbaartay kuna ilma dhashay kadib markii ay cadaadis amni kala kulantay mas'uuliyiinta Hirshabeelle saraakiil qaybtood mootan tahay iyo kuwa nool oo ka tirsan Hirshabeelle ani jooran ku dhashan ku soo koray gabar joor ku dhalatay caan ku ah oo ku dhashay ilmo ku dhashan ahay hooyo ku noqotay marka meeshaas aan ku noolaan jiray hadda Muqdisho joogtaa Jowharna deegaankaadii waay sidaan ogahay ma cabsi aad Jowhar uga soo tagtay mise si caadi aad uga soo tagtay Jowhar أنا جوهر عبسية هرت وقصة تجي إن عبسيدي أنا وقصة تجيني إن نفسدي دي إن أنا محيط أن حمر كونه ولا هذا عاصمة دي دلك هدائم هذا إن قبل كمال كلام دجناي حدنا السدا أكت هاي أنا برا بالشدة عنا كهاي إن بدن إن وحن تاجر وهاي تركيا ودجانا تاجر وهاي وحيالها سان لعب صدي حافظي أنا دجناي عبسية هذا لا وقصة جوري ونفسدي ده لعب صدي إن هذا المشان ساسا قصة دقي أيضا يدجنيد أيضا حلواني دي أيضا كسوق جدوادي. لباتوين جوهر الله كل أنتو هنجبادي مياجر. ها wax badan jawaado badan la kulmay marka anigan dad lama sii loo wadaagin oo iska aamusnay marka tii shalay afkan furtay oo maxaa lahaa yani ebel waxay ahaayeen dad iga shisheeyay Soomaa maanta kii ehel kugu dhawaayba hadii sidaas uu kugu sameeyay waxaan isdhahay farxiya maanta waxay hooyo iyo aabe u tahay 5 ciyaal oo 4 kamid ah iyadu dhashay waxayna la tacaalaysaa dabirida nolol maalmeedkooda iyo la cararidda nafteeda oo markii horeba ku qasabtay inay Jowhar isaga soo cararto Muqdishona kula kulantay in loogu hanjabo dil ani ilmahayga kala aabo waayo ilmaha waxaan u ahay 4 ciyaal waxaan u ahay hooyo iyo aabo iyo gabar aabaheed dhalo xanuunsaneed intaas ana mas'uulka ahay guriga ana u galay u baxay marka wax badan maamulka iyo guri ii geeyo aan shaqo aan ka helayo email macaawin lagu dhiibay iyo markaan tago waxyaalo badan aan la kulmi jiray waxaa la dhihi jiray belhebel ay soo jeedaa geelo jaawi ka imaaday qoriya xabada lagu kuriday qori waa lagu qabtay dhibaato badan la geystay nina waxa Allah u naxariistay maxaa la dhahaa Abdiwili oo taqaana oo nabsugid Jowhar ahay waxa taa lagu soo diray ilaa ay ku ogaaday in qof miskiin iska ah oo qof horsoconin oo kale guri galas u bixisay ina ahay intuu ka ogaado daba galay markaas oo aan idhahay qof alaala qofkii afaaraha soo galay isoo sheeg ana garabkaaga taagan waagaas isagu ma dabagal gaar kugu sameeyay ku daba dhigay nabsugid mise waa lagu xiray ma la xirin laakiin asaa dabagal igu sameeyay baaritaan igu sameeyay weydiin waa jireen ha waxaan xasuustaa habeenada kamid ah inuu isoo wacay noona baraale ugu soo wacay Allahu naxariiste maanta waa iga tabaryar yahay wuxuu ii dhahay salaamu calaykum maxaa dhahaa waxa ku jirtid falka ku jirta ka bixi waysid saan isaan lagu yeelay wax badan oo ii hanjabay anigu habeenkii uga cabsaday waxaan degnaa geelo jaaw gurigeena ku yaala habeenkii waa hurdi waayay markii daba asiga oo aan wacay aan dhahay saasa la dhahay markaas wuxuu yiri cid ku dhahay Soomaaliya iska seexo markaas aan waxaan dhahay caaw hurdi kari saa markii daba ii dhahay aniga waayo qofka saas ku dhahay danana ka lahay dantii aan lahayna waa gaaray madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayay u diraysaa baaq magangeliyo iyo mid garab istaag marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya madaxweynaheena Farmaajo Xasan Cali Kheyr ra'iisul wasaaraheena sharafta leh maxaa la dhahaa gudoomiyaheena aabaha maxaa la dhahaa Umar Finish dhamaan saddexdeed madax oo dalka u sareyso
aniga amni daraan dareemaa cabsiyaan dareemaa maadaama ana dadkii dad igu dhaweeyba sidaas aan aniga aan ka weheshanay aan isdhahay cabsi dhol marna lee soo wacay oo nafsadeeda la ordahay oo haddana ninkaas saas igu sameeyay aan nolosheeda waxay ku jirtaa marka iyaga waxaan ka codsanayaa inaad si nabadgelin maxay ahayd siiyaan oo garab siiyaan iyo garab istaagaan ninkaasna maxaa la dhahaa leega meel mariyo oo maxay ahayd cadowgeyga ee 30 waxba kugu dhufanay dhahay haddana wixii kaleentana maxay ahayd garab iga siiyaan oo amni farxiya markeedii hore waxa ay nolosheeda ugala soo carartay magaalada Jowhar oo dhibaatooyin kala duwan ay ka soo gaartay ka gadaal markii hanjabaado ay uga yimideen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Hirshabeelle iyo dad kale oo yan carabaabin waxaana Muqdisho ay u timid inay ku dabirto nolosha qoyskeeda kagana badbaado hanjabaadihii ay kala soo kulantay Jowhar hase ahaatee isla Muqdisho waxa ay kala kulantay in qori amaankiisa furan yahay lagu taago iyada oo loogu hanjabayo in la dilayo Cabdishakuur Shashaarteen Muqdisho.